siduu ka qabo sunnuhuna ku khilaafsan yahay dhaqanka soomaaliyeed gayanka siduu ka qabo sunnuhuna ku khilaafsan yahay Soomaalidu taageerto heesta naas aan dadku wada yaqaanin laakiin waxaan inagu iftiiminaa qisadii ku timi heestan si ay noogaan dadka ay noo ogeysiin lahayn marka heestan farshaxan qurux badan shaqo badan way gashay marka inuu bilaabana si ku timi sheekada iyo qisadu wax ka dhacday xamar abaar 23 xilligaas ay ahayd hadiya jeer qisooyinku qiso waxay taabataa tan qiso jacayl ah oo dadkii xilligaa joogay iyo السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبنا دي سلامنا دمان أخيار تقاليقه كوحدان برتا يوتيوب كان كلنا هي يول تي في أن أخياري قابتنا برنامج لبعض أيام ندي كودنا أن برنامج كان أكو سابسان وحكوغو قصوين كيساها قار وآلا باينو داديو أن mubarig daahir أو قابتنا برنامج كان سيقا ديار وآه مبارك سودو وندوهي جامعة أولا سيدات شيكتوية برنامج كان نسكو قدقلنا وين برنامجنا heestan maanta waxaa la dhahaa dadyow sadasha guur ama samir heesta labada magac way leedahay heesta ereyada wax iska leh iyo midhaha maxamuud kaale cismaan abwaanka weynaa Soomaaliyeed ee naxariisto laxanka waxa ku leedahay naaxiyada saalax qaasi naajin codkuna waa khardra daahir saddexdaba waa la garanay oo dad caan ah abwaanka dhintay meelada kalena way nool yihiin marka qisadana waa qiso jacayl ah runtii waa hees macno weyn xambaarsan dadka inta maqashay inta maqla doontaaba heestan waxay leedahay runtii markaad u fiirsato heesaha weeye aad dadku heesta qisadu waxay ku bilaabmaysaa inaan baa isticmaal marka dhalinyaro ahaayeen isku moogin hadii jeer dhaqanka Soomaalidu hore lahayn waxa kamid ah in reeraha qaarnaan iska gursan oo kuwa hadii jeer kuwa ehel xigaalnimo isu xiga iyo reero ka oranaya anu reerka kama gursan kuwa ehel xigaalnimo isu gursanay baahan sidoo isu jirta lakada waa si yartahay marka in la isku ogaadana sheekada hatta sheekada in la ogaado khalad iyo kiis weyn hayd dadna sheekadii waxay hoos u naxnaxayaan inanku wuxuu kamid ahaa ciidamadii qaranka wali sarkaal buu hawlba xilliga joogay inantu inaan ardayda bay ahayd dad meel ku soo koray isku dhowna way ahaayeen dadna sheekadii waxay qariyaan waxay u sheegeen markii dambe idoo jacaylkii iyo arrimihii meel wanaagsan ma marayaan laakiin aanay damarna wada ka qaadan cid ogaani jirin baa nin oo ninka ilmaadeerna ahaayeen saaxiibna ahaayeen buu sheekadii qisadii la wadaagay dabadeed ma ninkan wax la wadaagaysaa waa isna gabadhan oo ku maqan yahay isna wixii hawsha saajita iyo shaqada saajita iyo hawsha wax doonayeen inaad wax kala qabato dabadeed ninkii wixii uu yahay iga warsug waa ka warsugay dabadeed markuu ku soo noqday ninkan wuxuu yiri aniga laftigeyga waan gabadhan waan ba jeclaaba aniga laftigeyga arrinka intuu tagay buu ku yiri arrinka waxa ka jiray intuu xajisaa ninkaas saaxiibka ku sheegay inaan arrinka ku sheegay weeyaan waayahay buu yiri dadna intuu ku noqday wuxuu yiri aniga laftigeyga waan ku jeclaanaba wala saamayn arrinku ma hayne adiga ba aan xigaal iyo talnimo iyo saaxiibtinimo inta baan arrin kugu sheegnaa san waxba la qabanaya ma adiga waa san yeelay adigu dabadeeto gabadhu wuxuu ku yiri laba kala dooro arrinkan marka in la ogaado xaafadda iyo reerka iyo family inay ogaadaan arrinkaas waa wanted lama ogaan karo hay labada kala dooro inaan arrinkii inaan heerkii u sheego aan gaarsiiyo iyo in adaniga iraado waa laba dar dooradii doodna uu diiday gabadhu way diiday waxa tasman adigu dabadeeto waxa doonto sameey markay tiri ninku iska tii halku aamus lahaa sheekadii uu qarxiyay oo reerka ogaaday xafadii dawadna wixii dhammays la kacay arla wasla dhabaqday ninkiina waa la ataagay isagana darajadii ciidanka waa laga dhigay shaqadiina waa laga ceeliyay waana la xiray ninkii inantiina iyadana guriga lagu xiray xagga xabsi guri in iyada shaqadana ka warramay heestana ka warramay doonto wixii ku dhacay gabadhii waa la xiray arrinkii waxay tii ninka jecel way diiday inay marba ka noqoto gurigii baa lagu qafilay silsilada loo sameeyay qafila lagu xiray qolaal gaar ah lagu xiray si kastoo loo galay arrintii markii ay baahday bulshada ogaatay xilliga ay la joogtay waa arrinkii dadyowgii Soomaaliyeed markii magaalada joogay magaalada ay shaqada ka dhacaysay baa u kacay arrinkii waxay arrinka in wax ka qabano
ninkii waa iska soo daayay xarigii muddada xidhnaa hadda ma qiyaas karno laakiin ninkii waa la soo daayay gabadhiina guriga bay ka baxsatay oo dad hawsheeda wax ka ogaa hablooyo iyo dad noocaas dabadna arrinkii baa baahay magaaladu galay dabadeeto gabadha iyo ninkii inankii waa la isu dhisay markaa dee dad Soomaaliyeed magaalada la jooga baa idan arrinka ogaaday oo iyaga habeeyay oo u dhisay dabadeeto markaa abwaankan sheekadiisna soo gaadhay sheekadii markii maxamuud kale ay soo gaadhay baa sheekadaas waa sheeko muhiim ah hees baan ka sameynaa oo marka heestan laga sameeyo dadyow sadasha guur khardra daahir hada jeer waxa lagu yaqaanaa fanaanad jaceylna heesta jaceylkeedana xitaa ana waajibkeeda gudanaya bay tiri heesta aniga igu hadlaya hal xaqaasna codka ugu laray marka heesta halkan iyadoo dhaxtaan loo ka heli doonaa dadyow sadasha guur ila zamankiisu waa sidii buu ka dhigo dadyow sadasha guur ila zamankiisu waa marka waxa kamid ah erayada qaar ka xusno inaga dadka ka wada hayn tirtii fakatoo la maqal silsilada la igu xidha sheekada marka heestu hees dheer weeye waxa ka saddex qodob saddex bikaasa marxaladood bikaasa waxa ka hadlaysaa inankii ay iyagu u dirsadeen gacalka moodayeen u dirsadeen iyaga ka dhex bilaabay sheekadoodii xumeeyba marna waxay ka hadlaysaa bulshadii u kacday ee Soomaali dadku go'ay arooska u dhisay iyo inta samirku wanaagsan wax kasta oo la samraa in sadkeeda la helo marna waxay ka hadlaysaa qabiilnimadan iyo waxaan arrinkan dadka la isu diidiyaa sheekadu inaan ku wanaagsanayn waxay ka marka sheekadu qodob bay u fasiraysaa wixii ku dhacay markii guriga ku xidhnayd markii isaga la waayay markii ummaddu ku kacday marka sheekadan waxay ku tirintii waa qiso aad u cajiib ah dadka dhageysta iyo ku dhageysan doonaan ay ka heli doonaan abwaankaas ana waajibkeedii meeyay ifnaad khardra daahir reerkiina sidoo ku noqday reer hirgalay oo dhismay oo degay iskuulsaday adiga marka dambe arrinkii la iska dhameeyay sheekadiina waxa noqotay sheeko caam ah oo xilliga magaaladii la joogay iyo deegaankii aad Soomaali oo dhan saameysay marka maanta waxaan ku eegaynaa heesta dadyow sadasha guur heestan halkan ka helnaa iyadoo dhaxtaalayo iyadoo intay ka heli karno makan sagid ula bartaan sokreegdi irwaxiga heesta meel walba ku jirta tobada dhan bay ku jirtaa marka inagu muhiimadda inuu soconaayo macnuhu waxa weeye inaan jirin hees magaran la iska heesay hees waliba macna iyo ujeeddo gaar ah xambaarsanta marka maanta waxaan ku soo gabagabeynaa heesta dadyow sadasha guur khardra daahir qaado qisadaas ay ku saabsaneed reerkiina wuxuu noqday reer najaxayo magaalada marka iskuulsaday wixii way gaareen ujeedkooda inkastoo marxalado adag ay soo mareenoo intaas oo rafaadaysay mar la dilay mar xidhnayd waxbarashadii laga saaray la takooray ninkii dhimaayay sarkaalka darajadii laga dhigay la xidhay haddana adigu dad Soomaaliyeed baa u kacay marka sheekadaas maanta ku nasan doonaa saamaha qadaran salcalab kani layga dhigay ayaa saamaha qadaran salcalab kani layga